عليكم أخير شرفت لسود وهذا وإنجنير أبيض waxaan insha Allah tacaala muuqaalkan kooban rabaa inaan idinkugu sharaxo sida la isu diiwaangeliyo marar badan waxaa laga yaabaa inaad aad website-ka aragteen ama meelo kala duwan booqataan ama koorsooyin hadda YouTube ku jiro casharadeena aad kuwa qayb ka mid a daawanaysid kadibna aad u baahatid inaad isdiiwaangelisid runtii inaad isdiiwaangelisid waa arrin aad u sahlan just clear waxaad u baahan tahay laba option baad haysataa option waa inaad annaka nala soo xiriirtid annagoo ku diiwaangelino oo just magacaada saddexan iyo emailkaada soo qortid annagoo shaqadoo dhan kuu qabanno kadibna user password lagu soo diro hore iska diiwaangelisid optionka labaad waxa weeye in aad u isdiiwaangelisid marka haddaynu halkan imaano oo aynu website-ka booqanno ama website-ka soo kicinno waxaan insha Allah tacaala isku dayaynaa inaan marka koowaad aan website-ka hore ka soo kicinno website-ka haddaba marka kuu soo kaco way fududahay website-ka koorsooyin badan baa kugu jira category-yo baa kugu jira category-gan koorso ma aha ee waa takhasusyo tusaale ahaan computer application koorsooyin badan baa ku jira kan koorsooyin badan baa ku jira database koorsooyin badan baa ku jira mid walba oo liiskan ka mid ah waxaa ku jira koorsooyin kala duwan ayaa ku jira marka koorsooyinka kala duwan ayaad insha Allah tacaala aad ka rabtid ayaad dhigan kartaa marka saas inaad u fahamtid waa muhiim waya alright kana wareego waya marka koorsooyinadaas kala duwan oo meesha kugu jira sidee waxa weeye mid tusaalaha network koorsooyin baa ku jira kan koorsooyin marka waxaad dalbanaysid waa koorso ee category ma aha taas marka saa u fahan fadlan haddaa hoos soo raacdid waa arkaysaa qiimaha waa dhinnay just koorso kasta waxaan ka dhignay $9 koorsooyinka waaweyn oo dhan wax walba just koorsadan $9 weligeedna meesha way kugu jiri doontaa koorso kastood u baahan tahay any category u baahan tahay ma tanaad doonaysaa business designkaad doonaysaa ma applicationkaad doonaysaa ma securitygaad doonaysaa any category koorsooyin badan oo kala duwan kugu jira koorsada soo dalbanaysaa sida u kala horeeyaan anaa ku sharxi doona just waxaad weeye inaad u soo diyaar garowdid baa muhiima oo keliya just koorso kastana waa $9 saasi marka arrinta u fududahay koorsadaasna weligaa website-ka way kugu jiri doontaa insha Allah marka isdiiwaan gelinaysid haddaba way fududahay laba option baa haysataa inaad whatsapp-kan ku dhufatid ama whatsapp-ka linkiga meesha hadda video-gan ka daawanayso si aad ageegtid aad noo soo qortid magacaada saddexan iyo email kadibna account kuu soo dirna $9 soo dirsatid ee koorsada hore lagaaga fasaxo taa waa optionka labaad waxa weeye may in aad adigu isdiiwaan gelisid website-ka markaad booqatid fkab.com oo ku dhufatid sign up baa ku dhufanaysaa sign up markaa ku dhufatid ayaad insha Allah tacaala adigu isdiiwaan gelin markaa sign up ku dhufatid marka sign up waa halkan madax yar oo kale laga yaabo inay kugu soo baxdo so sign up markaa ku dhufatid halkan ayaad imaanaysaa marka halkan markaad timaadid halkan waa meesha iska diiwaan gelinaysid sign up ta batoonkan sign up ta kan waa ka marka arday cusub tahay ama qof cusub tahay tan is diiwaan gelinaysaa halkan waxaad gelinaysaa username-ka email-kaada geli isla email-kaada ku cali password halkaa gasho password labaad ku cali isla password-kan mar labaad ku cali kadibna register dhe waa automatic fudayd weeye saas isu diiwaan gelinaysaa haddaadan doonayn marka isdiiwaan gelisid aan iraahdo marka isdiiwaan gelisid then halkaas user-aad gelisay tusaalaha hadda user-ka oo kale password-ka halkan waa kan then waxaan dhahayaa maxay login ayaan dhahayaa greenka yarka abaasa usoo baxaya ma isaaf garanaysaa ma yahay isaaf garan baan leeyahay marka haddaa fiirsid koorsooyin baan isu diiwaan geliyay kala duwan balse waxaan rabaa example ahaan in adigu soo koorso hadda fiiri marka hore maadan ku jirin laakiin hadda haddaan refresh dhaho meeshan login iyo sign up iga xirmaysaa abiyad baa isoo baxaysa inaan iska diiwaan geliyay marka hadda koorsooyinka igu jira kuwan waa koorsooyin tijaabo ahaan aan u galay marka koorsooyinkan waxaa igu jira kolo 3-4 qaada oo kale saad aragtid iguma jirto powerpoint iguma jirto kaba soo qaad koorsada powerpoint arta inaad soo dalbatid halkan aad timid ama hoos soo raaco si fudud halkan imow application computer application baa tagtay then waxa weeye koorsada powerpoint-ga ayaa dooratay any koorso aad jeceshahay baad dooran kartaa fahan koorso kasta dooran kartaa ana tusaale un baan ku siinayaa kama dhignaa powerpoint soo dalbanaysa marka koorsada dooratid waxa asala marka hore waa gashay waa sign in bay ku tahay soo maarta halkan waad gashay email iyo password-kaadi ku soo gashay then waxa weeye description-kii waa kan course description-kii wixii la midka waa akhrin kartaa soo raac kadibna waxaa leedahay get course-adaan u baahnaa kadibna waxaa leedahay go to cart isla iyada isbedeshay go to cart bay noqotay
kadibna waxa weeye koorsadii waa kusoo baxday qiimaheeda kusoo baxday ma PayPal baa ku bixinaysaa mise wire transfer labadaba waa ku bixin kartaa marka hadda waxaan iska dooranayaa inaad PayPal haddaad dooranayso waa kan way shaqaynaysaa marka wire transfer baa dooranayaayo sahal iyo EVC iyo saad inaan kusoo diri karo marka waa easy haddaad saad kasoo diraysid xidig 880 isticmaal saa usoo dir lacagta geli lamarka haddaad sahal kasoo diraysid waa kan haddaad EVC kasoo diraysidna waa kan intaa markaad samaysid oo lambarka qoratid intaadan dirin ama qoro xogtan qoro oo dee lacagtii markaa soo dir lacagtii markaad dirtid then waxaad ku dhufanaysaa purchase ama purchase lambarka qoro oo meel intay ku qoratid then waxa weeye purchase-na sii dheh purchase waa iska sii dhihi kartaa koorsada markaa purchase dhahday ilaa hadda koorsadii powerpoint-ga kuguma jirto sababtoo ah waxa weeye lama soo ansixin weli marka waxaad samaynaysaa lambarkaad lacagta kasoo dirtay iyo koorsada aad dooratay ama emailkaada aduu intaas soo raacay magaca lambarkaad lacagta kasoo dirtay iyo emailka aad isku diiwaangelisay ya haddaad aduu soo diiwaangelisay emailka isku diiwaangelisay soo diraysaa ecd ayaa leedahay koorsada whatsappka ayaad kusoo dhufanaysaa marka waa very basic horay ayaa lagaa diiwaangelinayaa oo annaka markaa procedure-kii ku dhamaystirayna lambarka whatsappka ah ayaa diiwaangelintaada laga dhamaystirayaa sidaasay marka arrinta u fududa marka koorsada lagu sideynaya waa kuu fududaanaysaa ardaygii isagu procedure-kan inuu saan raaca ay ku adag tahay just keliya wuxuu samaynayaa koorsada magaceeda iyo emailkiisa iyo magaciisa saddexaad soo qorayaa markaasi user loogu sameeyo annaka userka uu create garaynayna u dirayna sida website ku isticmaali lahaydna waa ku fahansiinayna insha allahu tacaala ardayga wuxuu isweydiinayaa sidee casharada marka u dhigtaa haddii la soo daayo kaba soo qaad koorsada waa lagu soo daaya halkan ku soo galaysaa marka koorsada lagu sii daayo way ka duwan tahay qaabkii hore halkan ka soo aadi maysid ardada qaybtooda khaladka sameyn waxa weeye halkanay ka soo aadayaan halkana ka soo aadin sababtoo ah adu arday diiwaan gashan baa tahay userkaada iyo passwordkaada markaa gashid ku gashid oo aad soo gashay halkaa ku dhufo userkaada ku dhufso tusaalahan aniga halka magaca halkaas ku qoran yahay madaxa yarka ah adiga gaduud oo kale halka ku noqotaa madax yar halkaas kaaga muuqato da mobile isticmaalaysid enrolled courses ku dhufo koorsooyinka isu diiwaan gelis marka imo halkan meel kale ha aadin marka waxaad ku dhufanaysaa insha allahu tacaala percentage-ka amaraysa waa ka tusaalahaan hadda koorsaan ana koorsooyinka dhan isu diiwaan geliyay laakiin adiga just koorsada isu diiwaan gelisay baa kuu soo bixi doonta marka start course oo kale qofku dhahaya ha ku dhufan koorsada waxaad samaysaa start course ku dhufo meeshan bluega start course koorsada bilow ah then start course markaad aadid waxaad aragtaa casharadii oo maarsaa kugu soo baxaysa nadiifa welcome horta fiiri halkan eeg halkan midigta eeg midigta halkaas oo maartay meesha bluega haddaa ku dhufto way xirmaysaa iyadoo dhan ya korbax haddaan ku dhuftana way furmaysaa waa jabtaradii markaa jabtar kaste jabtarka waa furi kartaa jabtarka oo dhan waa furi kartaa casharo badan baa ku jira jabtarka ya cashar kana waa jabtarka magaciisa environmental setup marka jabtarka oo dhanna waa la xiri karaa marka hadda halkan oo kale ka soo qaada welcome to Kali Linux casharka waad baa ku dhufatay casharka waad automatic inta badan iska soo baxa then waxa weeye waxaad dhahaysaa play ayaad dhahaysaa alright play ayaad ku dhufanaysaa waka casharkii waa ku bilaabanaya full screen baad ka dhigi kartaa si nadiifa ayaad casharkii u raaci kartaa marka casharka dhamayso automatically complete isaa isdhahaya ama complete baad dhigi kartaa next lesson baad dhahaysaa automatic lesson buu ku geynayaa progressna uu ku sameynayaayo koorsada hadhow markaad aad ku dhufatid dashboardkaada ku noqotid wuxuu ku tusayaa percentage-ka koorsada ilaa inta aad dhigatay hadda aniga koorsooyinkan 0% waxba ma dhigan laakiin adoo kale waxaa laga yaabaa inaad wax badan dhigatay marka intaa dhigatay hadba ayuu ku tusayaa 10%, 5%, 6%. arrinta kale oo muhiimka waxa weeye in ardaygu samaysto suusan waqtiga uga xumaan jadwal u gaara iyo maalmo u gaara iyo saacado u gaara wax barto qofka inuu samaysto maadaama wixii online tahay haddaadan jadwal iyo maalmo ku gaara samaysan waxa kugu dhacaysa in wixii kaa kala dhumaan oo isa ka dhaxyaacaan marka wixiina waqti badan uu kaaga baxo qarashna kaaga baxo wixiina aad ka faa'iideysan marka waxa fiican saacado gaara inaad samaysto wax baratid inaad samaysatid wax loo yaqaano alarm aad ku xiratid mobilkaada alarmyo kala duwan baa jira la isticmaalo alarmkaas aad isticmaashid alarm kale oo isticmaashid oo maaragtay saacadaha wax baratid oo dhan kadibna casharkii markaad daawatid in aad la practice garaysid ayaa laga doonayaayo aad la samayso xabad ula samaysid wixii kugu soo adkaada ama maaragtay macquul noqon waaye screenshot baad ka soo qaadaysaa waad noo soo diraysaa mar walba waxaan u joognaa halkan in adiga ku caawino waxaan rajaynayaa
inaynu isla fahnay qaabka la isugu diiwaangeliyo koorsooyinka xirfadkaab sidoo kale ardaygu isagoo hadduu doonayo in loo fududeeyo just lambarka whatsappka ayuu nagala soo xiriiri karaa waa 25297 marka waa very easy lambarkaas ayaad insha allahu tacaala nagala soo xiriiri doontaa 25297 ama calaamadan yarta whatsapp ku dhufo iyadaa ku keenaysa automatic baad noogu imaan doontaa insha allah marka aad ay u fududahay weliga allaha saa u fahan procedure-ka dhan procedure-ku waxa uu ka kooban yahay inaa category-ga horta aad rabtid inaad baratid inaa aadid hadaa computer-ka bilaabaysid waxa fiican application inaad ka bilowdid category-ga dooro kow saas oo kale iyo labo category markaad dooratid koorsooyin si u kala horeeyaan anaa kaa caawin karna koorsada ugu horeysa markaa bilaabaysaayo sagaalkaa door baa soo dirsanaysaa oo lagu sii deynayaa nabaday horey ayaa casharadaada insha allahu tacaala aad ka bilaabanaysaa haddaad maaragtay meel dhexe computerka horey u taqaanay waxaan oo dhan macallinkiiski iyo waxaan oo dhan aad soo dhigatay ee balaaski wax walba soo dhigatayna waxa weeye waxaad ka bilaabi kartaa kuwan ku xixiga ayaad hadba taa doonaysid ayaa aadi kartaa isleedahay takhasuskaada marka waxyaabaha ardayga aan la siinoo kale saaran ardaygu hadduu ku wareero takhasuska tuu u go'i lahaa horta wax walba inaad wax ka dhigtid baa fiican oo wixii fahantid kan kuu fudud baa kuu soo bixi doonta kan kuu fudud markaa kaas ayaad maaragtay insha allahu tacaala aad ku jabi doontaa iyo ku dadaali doontaa marka diiwaangelintuna waa qaabka video kusoo laba casho ama qaabka isu diiwaangeli oo adigu maaragtay soo process gareysa kadibna whatsappka iga soo nagala soo xiriir koorsada la isoo daayade ama whatsappka marka horeba nagala soo xiriiro just emailkaada iyo magacaada saddex noo soo qor annaga ku diiwaangelinayna paymentga akoonka kuu soo direynaa horey ayaad insha allahu tacaala aad ka bilaabaysaa waxbarashadaada mideeda labaad ardaydu inay fahmaan xirfadkaab college focuskiisu waa practical صح فهمتي مع waa practical hadda koorsooyinka meesha kugu jiro dhan kan waa practical tan waa yacni waxa anagu focuska aan saarayno ma aha shaqadii jaamacadaha shaqadii macaadiyada laakiin focuska waxaan saarayno waxa weeye waa practical qofku hadduu rabo inuu waxaan isdhiso ardada wax naga barta maxay yihiin waa ardada jaamacadaha dhigta hadday rabaan arday jaamacadba dhamaysay arday shirkad ka shaqaysa dad shirkada ka shaqeeya dad markaa raba IT-ga inay bilowdaan dad hadday rabaan iskuulo dhigta qof kastoo raba qaybta practicalka inuu iska dhiso ayaa arday maxaa la ka noqon kara oo naga faa'iideysan kara markii laga tago maxaa la yiraahdaa qaybtan de language oo kale oo asagoo Englishki ah iyadana leveledeeda iyo waxeeda leh marka insha Allah waxaan rajeynayaa casharkaas inuu informative ku ahaa fadlan muuqaalkan haddaad page-keena ka daawanaysid sida YouTube-ka Facebook-ka like garee insha Allah tacaala channel-ka ama Facebook-ka soo kala subscribe dhe oo ku soo biir marka guul fara badan ayaan idin rajeynayaa ballanteenu waa xirfadkaab college iyo inaynu is dhisno waxaanu dadka baraynana waa wixii qofku uu ku shaqaysan lahaa oo shaqada caadiga suuqa ku raadsan lahaa marka guul fara badan baan insha allahu tacaala idin rajeynaya wajin rabyad asalaamu calaykum